tuulo ka mid ah tuulooyinka ayaa mar ku xanuunsatay haweeney ninkeedana marar badan ayuu dhaqaatiirta u geeyey ilaa uu uga sheegay dhakhtar ka mid ah dhaqaatiirta ku sugnay tuulada in xaaskiisa ay u baahan tahay in lagu sameeyo qaliin dhaawac ku yaalo awgeed wuxuuna u sheegay in dhakhtarka qaliinka sameeyo inuu joogo caasimadda wuxuu kaloo u sheegay inay waajib ku tahay inuu u wado xaaskiisa dhakhtarka xirfaddaasi leh ninkii wuxuu u waday xaaskiisa caasimadda wuxuuna geeyey isbitaalkii laga helayay dhakhtarkaasi xaaskiisana waxaa lagu sameeyey baaritaan waxaana loo xadiday loona ballanqaaday xilligii ay geli lahayd qaliinka markii haweenaydii lagu samayn rabay qaliinka waxay gashay koomo ninkii wuxuu wareystay dhakhtar ka mid ah dhaqaatiirtii ka shaqaynaysay isbitaalka si uu u ogaado xaalka xaaskiisa dhakhtarkii ayaa si cara leh wuxuu ku yidhi maxaad u keentay haweenaydan maxaa yeelay waxay ku dhowdahay inay geeriyooto haddana la noqo xaaskaaga mar kalena hawla imaan dhaqaatiirta waayo geerideedaba wax kama harin sidaasi ayuu yidhi ninkii dhakhtarka ahaa ninkii aad ayuu u murugooday markii uu dhakhtarka ka dhaqaaqay waxaa ag timid gabar dhallinyaro ah waxayna maqlaysay dhakhtarka wixii uu ku lahaa ninka gabadhii ninkii ayay eegtay wayna dhoola caddaysay waxayna ku tidhi aaway dhakhtarkii qaliinka ku samaynayay xaaskaaga markii uu u sheegay dhakhtarka magaciisa aaday ula cajabtay waxayna ku tidhi haddaba miyuu aqbalay inuu qaliinka ku sameeyo xaaskaaga isagu wuxuu ka mid yahay dhaqaatiirta kuwa ugu caansan wakhti badanna ma helo wuxuuna qaliin ku sameeyey 10,000 oo qof kuwaasoo la xanuunsanaya xanuunka ay xaaskaagu la xanuunsanayso weligiisana kuma uusan fashilmin hal qaliin ninkii markii uu maqlay hadalkaasi wuu dhoola caddeeyey aad ayuuna u farxay wuxuuna fiiriyey xaaskiisa alla weyne wuxuu yidhi قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم oo micnaheedu yahay hadal wanaagsan iyo dhaafid yacni saamaxaad ayaa ka khayr badan sadaqa uu raaco dhib rabbina waa hodan dulqaad badan daqiiqada kadib ninkii xaaskiisa waxaa la geliyey qolkii qaliinka gabadhii sidatay dharka dhaqaatiirta waxay u carartay dhanka dhakhtarka u sarreeya isbitaalka waxayna u sheegtay dhakhtarkii ku dhahay ninka in xaaskiisu ay dhimanayso waxayna soo xasuusisay xadiiskii rasuulka naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo ahaa إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب بنفس المريض kadib markii uu ku dhammaaday qaliinkii guul ninkii wuxuu u mahadceliyey dhakhtarka wuxuuna raadiyey gabadhii u bishaaraysay wuxuuna u maleeyey inay tahay kalkaaliso markii uu helay kadib wuu u mahadceliyey wuxuuna rabay inuu siiyo xoogaa lacaga laakiinse way ka diiday waxayna ku tidhi cilmiga waxaa ku soo arooray in bukaanka xal walba uu yahay xanuunkiisa inaanan niyadda laga jebin waxayna ku tidhi waxaan dareemay inuu ku saameeyey hadalkii uu kugu yidhi dhakhtarka waxaan sugay ilaa uu ka tago si aan niyadda ugu dhiso xaaskaaga si ay hadhow ugu kalsoonaato dhakhtarkeeda waxay kaloo ku tidhi anigu ma ii kalkaaliso waxaan ahay dhakhtarad maantana waxaan halkan ku lahaa qaliin mana isgaranayno dhakhtarkii xaaskaaga qaliinka ku sameeyey keliya waxaan ku dhaqaaqay xadiiskii rasuulka naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo ahaa بشروا ولا تنفروا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما